السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu maraynay waxaan qaadan doonaa casharkii labaad tools panelka ama toolska Adobe Photoshop. waxaynu maraynay toolska loo yaqaano gradient tool ku shaqeyso waa maxay? toolkan gradient ku shaqeyso waxa weeye in muxuu ahaay marka doonaysid shapeskaaga ama backgroundkaaga inaad siisid muxuu ahaay laba color ka koobnaado ayaa la isticmaalaa toolkan. marka waxaan leenahay gradient dooran doonaa dadana qaybta hoose ayna soo bixi doonta click baan leenahay. waxaan leenahay marka qaybta basic aynu kasii dooran doonaa. basic marka waa saddexda qaybood. halkan waa marka doonaysid laba color isku darsan marka kalarka casaanka iyo kalarka cadaanka baa isku jira hadaynu soo jeedno inaan idhaahno backgroundkeena wuxuu noqon doonaa laba color ka kooban. sidee marka colorska loo bedeli karaa? waxaan leeyahay halkaas intay gradient-iga waxaan dooran doonaa qaybtan baan klick odhanayaa halkan sawirka kalarka casaanka ayaan bedelaynaa. wallahi madow gari marka dad doonaysid bedeshin waa lamid saas ma oranaysaa marka okay jeedsan marka kolba labada color isticmaashin baa dhex galaya marka doonaysid laba color isku dartid ayaa la isticmaalaa marka gradient-iga. way toolka ku xiga ee muhiimka hadaynu kasoo noqono gradient-iga toolka kale muhiimka waxaa la yidhahdaa pen tool shortcutkiisa marka waa b shortcutkiisa waa b. pen tool ku shaqeyso maxay tahay? pen tool ku shaqeyso waxa markaa wax loogu talagalay in lagu sameeyo shaydiska noocyadiisa kala duwan. soo halka waxaan u baahnay in shay samaysto click baan leeyahay click baan oranaysaa dadana halkan hadana halkan click leeyahay hadana halkan click leeyahay hadana halkan click oranayaa yalla halkan markii waxay samaysmay shay bay samaysmay. marka pen tool waxa loo isticmaalaa in lagu sameeyo shaydiska kala duwan ee Photoshop. marka aad u baahatay inaad samaysid design dabeetana aad shay rabtid inaad samaysid shaybkiina aan ku jirin shaydiska Photoshop waxaad ku samaysan doontaa shaybka pen toolka shaybka doonaysa marka doonaysid inaad samaysid ayaad ka isticmaalaysaa. waxaan leenahay click pen tool baa oran doontaa click baan leeyahay markana click baan leeyahay markana click baan leeyahay marka markii wax la samaysmay shay baa la samaysmay. pen toolka marka shaydiska noocyada kala duwan ugu sameeyaa. way isagoo shape tool oo tool kaligiina waa arki doonaa. toolka ku xiga waxa la yiraahdaa type tool ama text tool. text toolka marka waa toolka muxuu ahaa la isticmaalo marka la doonayo qoraalada la soo geliyo Photoshop-ka. waxaa la markaa sidaan tagi doonaa dadana laba qaab marka la soo geliyo qaab waxa weeye oo hayay inaan idhaahno horizontal waa qaab jijiid oo kala saas oo kale weeye. qaab waa in qoraalka ka dhiga jijiid la soo weynaysiin doonaa. qaabkaas qoraalka waa inuu ahaadaa jijiid. qaabka labaadna waxa weeye waa qoraalka inuu ahaado vertical hab vertical yani hab istaago kala click baan leeyahay qoraalka hadaynu eegno inuu samaysan doonaa qoraalka istaag buu noqon doonaa. qoraalkan muxuu noqday istaag qaab istaag oo kale waxaas aynu qorno qoraalka doonaya jeeftama muxuu qornay qaab istaag oo kale waxaan noqon habka ugu fiican la isticmaalo marka waa horizontal qaabkan jijiidka weeye. marka waxaan eegi doonaa sidee farta laakiin text tool waxaan arki doonaa sidee farta muxuu hayay nooceeda loo bedelaa sidoo kale sidee cabirkeeda loo kordhiyaa sidoo kale sidee kalarka loo bedelaa alignmada waxyaabahan waan arki doonaa. marka doonayna inaan farta kalarkeeda bedelo waxaan leeyahay highlight kale fartan highlight kareeyaa dadna waxaan tegi doonaa qaybta kalarka iga muuqdo inta waxaan leeyahay kalarka u baahanay oo doornay waxaan u baahanay noocaas u baahanahay waka marka doonaysa inaad kalarkeeda bedeshid marka wada highlight kale marka labaad qaybta kalar iska tag soo dooro marka dhamaystirna halkaas saxda doonaa. هذا واحد بقى إنه بين فرق بدلنا فرق نوع المكان وبعدين إنه وين أتجدنا هاي الكراسة لكن قيد خاصة إنه دونا لكن أصف دونا drop down كاير لكن هذا كمان كتورني فرق نوع سلو خلاص هذه فرق صنت هنا وتكون كويسة حلنا هاي هي بدي وكا هذا أنا بهانا هنا بدرم فو هاي عبر كنا الكاسة سوي كذا تدري سوي نسيا تدري ما يريلا قيد هذه كذا يعني كذي تدري ما يريلا وكا ساسنا وينينتا سنا ويرين كلا كنا كاسة بسرعة الأخر في سين سؤال بين كريم لنا هاي وكا فرق مركا ودولسين كتا فرق عبدالله بقول كتا نوع سوى بقول وين هذين النتورك في واحد هذا
direct selection tool iyo path selection tool iyaga waxaan ku arki doonaa marka loogala samayno waxaa noo haray toolka loo yaqaano shape tool shape tool waa mid kamid ah toolska ugu fiican ama loogu isticmaalka badan yahay Photoshop waa shaybabkii kala duwanaa way intaan doonaya rectangle sameeyo shapes markaa naga problem bay shape rectangle-ka shape ma tegaysaa deetana rectangle doona soo jiisa shapeska laftooda marka waxay leeyihiin waxyaabo laga beddelay leeyihiin tusaale ahaan kore inaynu bedelno colorka shapeka inaynu bedelno stroke waxa la yidhahdo shape leeyahay shapeka colorkiisa markaan doonayno bedela marka wax tagaa qaybta fill shape waxa la yidhahdaa fill iyo stroke fill waa colorka gudaha colorka casaanka stroke waa colorka dusha soo maraya loo yaqaan stroke marka colorka casaanka soo bedelo waxa la yaqaan qaybta fill baan tagaya deetana colorka soo baxay baan dhisa doonaya fill doonaya isbedelay waxaan doonayaa inuu sameeyo hadaba color yaro stroke inuu sameeyo qaybtan stroke ee furanta tagi doona colorka doonada casaanka stroke marka isagu waa colorka dibadda wuxuu leeyahay side halka marka la kordhiyo wareega stroke marka dhowr nooc noqon karaa wuxuu noqon karaa color solid color noqon karaa colorka caadiga ama gradient noqon karaa laba color isku jiro noqon karaa tusaale ahaan saas oo kale marna waxa la yidhaha pattern ay noqon karaa oo noocaas kaa solid colorka ugu fiican solidkaas aynu ku daysanayna colorka casaanka siinayna cabirkiisa markaa waan yaraynayna waxa loo yaqaan markaa rectangle tool baa la yidhahdaa waa shape rectangle shape dhowr nooc bay leeyihiin round mid la yidhahdaa baa jira waa isna shape ka mid ah round rectangle kan yar ka duwan yahay isagana colorkiisa waynu bedeli karnaa casaan baynu ka dhigi karnaa بدأنا markaa shapesku nafta kale mid la jira oo shift laba qabto markaa la samaynayo goobadii weeye shape kasta marka wuxuu yeelanayaa labada color waa fill color iyo stroke color goobada markaa taasina triangle baa jira shape triangle jira isaguna oo saddex gees ah polygon limit dheeraad jiro oo 5 dhinac badan marmarna waa laga badiyaa waxa laga dhigaa 6 dhinac ama ilaa meelaha 9 dhinac polygon shape loo meelaha way kala duwan yihiin science ka dhigto laba naqti tanasal soo gargaaraya waxyaabahaas oo dhan qaybtan waxa la yiraahdaa toolka ku xiga hand tool baa la yiraahdaa hand tool shaqadiisu maxay tahay hand tool kaasi aynu shaqadiisu ogaano waxa weyn inuu toolka hooseeyo la yiraahdo zoom tool toolka waa toolka ogaanaya haddii designkaagu uu ka yara fogeyna soo dhaweystid kale markaa plus iyo minus plus waa zoom marka zoom doonaysa soo dhaweysid minus waa marka doonaysa inaad zoom in oo ah muxuu ahaa zoom out oo noqonaysa marka doonaysa inaad ka fogeysid waa zoom in iyo zoom out marka haddii doonaysa inaad soo dhaweyno designka taas aynu soo dhaweysanaa click baan leenahay taas aynu soo dhaweyno marka soo dhaweeyo haddaan u baahanahay markaa in esta begar qarsoonta dhinacan aan tagana taga laftigan tagana waxaan isticmaalay toolka la yaqaan hand toolka markaa shaqada qabsada hand toolka ayaa shaqada leh hand toolka ayaa meel walba oo designka kamid ah ku tegi karta wixii ka qarsoon oo dhan isaga markaa u adeegsanaysa way toolska markaa Photoshop intaas ugu caansan muxuu ahaa waxaan eegi doonaa markaa sidee qoraal iyo shape isku dul saaraya sidee shape-ka soo dhex geliya waxyaabaha badan ee waxaan dhamaanta dan iska saaro mid cusub baan iska saarsan doonaa new markaa okay baan leeyahay waxaan eegi doonaa markaa sidee qoraal iyo shape isku dul saaraya sidoo kale shape iyo sawirna sidee baan isku dhex gelinaya qaybta shape-kan tegi doonaa soo qaadi doonaa rectangle xagga ma soo dhigan doonaa markaa sidaan tegi doonaa qoraal baan soo qaadaya haddana markaan doonayo inaan qoraal iyo shape soo saaro qaybta sidaan tegi doonaa qoraal baan soo qaadanaa waxaan markaa click baan leeyahay qoraalka markaa uu yaro waaweyn shape iyo qoraalka markaa qaab kale wax jira loo yareyn karo waxaan leeyahay haddaan doonayo yareeyo control T baan taabanaya control T marka waa qaab kale loo yareeyo shapeska iyo qoraalka
marka la isticmaalayo softwareka Adobe Photoshop waxaa markaa markay soo baxaan hareerahu ayaan ka soo jiidaya yareynaya dadka waxaa leeyahay okay saxdan taabanaya xaggaas soo dhigay qoraalkan waa qoraal lagu soo khadamo iska saarnay marka doonta saartay waa dooranaysaa deetana backspace baa taabanaya qoraalka saasaan markaa shape ku dhigaya qoraalka shape-ka saasaan ku dhigaya halkan waxaa jirta markaa waxa la yidhaha layerska shaqada waxa weeye waa in muxuu ahaye kolba shayga isticmaalaysid aad ka aragtid muxuu ahaye xagga layerska ay kusoo muujiyaan sidoo kale haddaad doonaysid inaad iska qaadsidna shaqada waxa qabta layerska isha yar baad ka qaadaysa marka haddaan u baahnay markaa in muxuu ahaye qoraalkan iyo shape-ka hadday kala sarreeyaan sidee la isku hoos mariyo sidee la isku hoos mariyo waxaan leeyahay layerska aan u baahnayn meeshan ka saar waxaan leeyahay markaa qoraalka iyo shape-ka is hoos yaallaan tusaale ahaan imika shape-ka la sarreeyaba haddaan xagga layerska jooga imika shape-ka sarreeya shape-ka sarreysiin doonaa waxaa imika sarreeya shape-ka waa sarreeya qoraalka waa hooseeya qoraalka ma soo muuqda marka sababta ma soo muuqanin waxa weeye shape-ka sarreeya markaaseen labadooda isu kala sarreysiin waxaan leenahay qaybta waxaan imanayaa tida dadkana wuu ka sarreysiin imika automatically markaas si sax ayuu ugu soo baxa qoraalka way taas marka waxay ahayd sida la isku saarayo qoraalka iyo shape-ka marka doona markaa dhisanada ku samayn doona waxaan doona markaa imika sidee shape loo soo dhexgeliya sabab tegi doona qaybta shape toolka kana wax soo qaadaya labtikaal baan soo qaadaya goobo shift baan qabanaya markay kusoo baxdo sidaa markay kusoo baxdo waxaan leeyahay markaa move toolka okay soo qaad qaadi doonaa file waxaan leeyahay place embed waa kan soo qaad sawirka markaa shaashada ku weynyaana waxaan leeyahay yareen sidaas baan ku samaynayaa shape-ka iyo sawirka markaa shape-kan sarreysiinaya waa in markasta shape ku sarreeya markasta waa inuu sarreeyaa shape-ka iyo sawirka markaan doonayno inuu isdhex gelino waa inuu sawirku sarreeya markaa mar walba intaa marka dhabe waxaa taga qaybta layerska dabeetana labadoodu waa kuwan isdul yaallaan layerkii shape-kuna waa kaa layerkii image-kuna waa kaa layerka image-kan tagaya marka right click baan leeyahay dabeetana waxaan leeyahay create climax macnaheedu waxa weeye sawirkan dhex geli shape-ka haddaan imikaas markaa sawirkan joogaa control T yidhaahdo si hareerihii laga weynaysiinayo soo baxaan sidaa ugu yarbadi sidaan ugu yarbadi haddaan eego markaa imika shape iyo sawirkii way isku dhex jiraan marka shape iyo sawirkan saasaa la isku dhex geliyaa intaa marka waxaa inoogu eeg tools casharkii toolska ayaa intaa inoogu eeg waxaynu geli doonaa markaa maalmaha soo socda insha allah axiraan dib wax ku arki doonaa sida design loo sameeyo ee loogu loo sameeyo waxyaabaha